dad badan ay ku kadsoomeen. dadka jooga dhakhtarka umniyadooda ugu weyn ma taqaana qofka dhakhtar ku jira waxa ugu weyn ee uu rajaynayo qofka dhakhtarka ku jira waa inuu marun kaco akbar umniya dadka inta haysataa ma ogtay subax intaad soo kacday ma tidhi alxamdulilahi rabbi alcaalamiin saaka waan caafimaad qabaa mise waa daily life waa sidii dee rootiinka ahayd aad rajaynaysay inaad subax iska soo kacdo oo durduriso oo meelaha marmatid oo soo noqotid already waad rajaynaysay wuxuu nabi maxamed tilmaamay calayhi salaatu wasalaam nicmooyinka ugu waaweyn ee bini aadamku uu garan karay la'yay waxa weeyaan caafimaadka iyo waqtiga ninku markuu dhallinyarada yahayna waa labada ugu fiican ka da'da la gaadho labaduba way lumaan daa markaad sii jirtaba caafimaadkaagu hoos buu sii socdaa isla markaa waqtigaaguna wuu sii yaraadaayo waa lagula yeeshaa calaa'iqda iyo dadka kugu xidhan iyo mushkilaadkaad xallilaysa ayaa badanaya markaa wax badan baana jaanis u helay laakiin ninku markuu dhallinyarada yahay labadaba keligii baa haystaa caafimaadkana inta badan mostly dhallinyaradu caafimaad qabtaa waqtigana waxbaba kuma xidhna isagaa maamusha waxa uu nabigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam si aynu u fahamno waqtiga qiimihiisa ilaa markaasaynu idaarayn karnaa markaasaad garan kartaa maxaad ku qaban doontaa qiyaamaha marka la tago su-aalaha ugu horreeya la isweydiinaya ilaahay hortiisaa lagu joojinaya dhaqaaqi maysid su-aalaha inaad ka jawaabto mooyaane su-aalo 5 ama 4 riwaayadka xadiis waa ku soo arooreen waxaa lagu weydiinayaa cimrigaagii iyo waxaad ku bixisay qiyaamaha ilaahay hortiisa ka dhaqaaqi maysid inaad su-aashaa ka jawaabtid mooyaane maxaad ku qabatay cimrigaagii waa mar labaad waxaa lagu weydiinayaa cimriga qayb ka mid ah war dhallinyaronimadii sidaad u gashaa lagu weydiinaya waqtigaad dhallinyarada ahayd mar saddexaad waxaa lagu weydiin xoolaha xaggay kaa soo galeen iyo xaggaad ku bixisay mar afraad waxaa lagu weydiin aqoontii maxaad ku qabatay wixii rabbi ku baray waxaad aqoon heshay maxaad ku qabatay su-aalaha kani waa su-aalo qof kasta oo aadama sugaya in aakhiro la weydiiyo